وحي بالقرآن ترنم يدفع عنا نار جهنم اقرأ أول حرف يهمي عطرا في الأرواح تنسم عطرا في الأرواح تنسم يمنحنا عزا لا يخفو ويجرد سيفا لا يهزم ذاك الهادي نور فؤادي ماذا يشد القلب المغرم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم kusoo dhawaada barkulanteena cabdulla mansuuri waxaan idin rajeynayaa dhammaantii been caafimaad iyo khayr qab iyo wanaag aad ku wada sugantihiin saynu muuqaalkii hore hordhac ahayn ku soo daawanay waxaynu bilaabaynay barnaamijkeenii aynu ugu magac darnay ana wal qur'aan ama aniga iyo qur'aanka barnaamijkan hore waxa u duubay oo xalaqaad badan ka sameeyay Dr. Jaasim Suldaan isla markaana aan jecelaystay markaan aad u dhugtay isla markaana aan si fiican u dhageystay inay muhiim ay noqoto inaan bulshadeeda la wadaago isla markaana aan afcalin aan ku sameeyo barnaamijkan wuxuu ka koobnaan doonaa san hore u soo sheegnay ilaa 12 xalqadood ama ka badan isla markaana muuqaalkan maanta aynu isla wadaagno uu noqon doono xalqadii koobaad ee barnaamijka ku iba fureynay xalqadan waxaanu kaga hadli doonaa qur'aanka kariimka ah inuu yahay kitaabu tafakkur يعني كتاب القرآن كما القرآن الكريم وإلهي سبحانه وتعالى إنه جسود شيء إنه يهي كتاب أباهن إن بدن لو فكره إن بدن لا دحجله إن بدن يعني تأملي وفي فلسفة بدن لو سميه سادر هذه يعني حلقات هنا أو نوح نقطة وناسين هراء أصلا شيء إن القرآن كأنه دحجل يستلتال وفي فلسفة شيء عن قصة منه سين وقصوا حسابنا يعني معاني الدقيقة القرآن كل حجرة سين ونلشين وطبقنا أما أي معلومات أين وقفعنا قرآنك هرتين يالا وحويا وجوهرة يعني وشيء رنتي آد ومهم وشيء نرشين أولا نفل قلية ودستور كينا وشيء اللي بقى هي إنه دحجل بدن كصمينه لا صاحبنا معيس أين نقولنا قرآنك ورسالة يفرين تصوت أمر ينهي يعني وحلو أمر وحلا يدريه wax lagu boorinaya in samaysid iyo wax lagu lagaga digay oo leeyahay ha sameeyay hadii quraanka shakligiisa sare iyo daahirkiisa sare uu yani badil inooga noqdo yani waxa gudihiisa ku jira yani quraanka cilaaqa sax ah lama leeyin quraanka yani daahirkiisa sare iyo in quraanka aynu akhrino oo maalin walba intaasoo yani juz aynu akhrino waa muhiim laakiin waxa ka muhiimsan yani waxa gudihiisa ku sii dhex jira ee macaanida ku sii dhex jira aayad walba inaan u fiirsano ayaa boqolkiiba boqol ka muhiimsan tusaale haddaan soo qaato waa sidii qof beer soo galay beertaa uu soo galay yani maalinta uu dhex seexday si fiican buu jawi fiican ku qaatay sawiraan qurux badan uu ku galay laakiin isagoo wax allaale waxba ka cunin oo baahidiisii aan waxba yani uga baahi tirin ayuu ka baxay beertii nin waa ninkaas ninna intuu beertii soo galay buu dhex seexday sawiraan qurux badan ku galay beertii wax fiican ka cunay midhaha intuu ka qaadan karay ka sii qaatay buu ayuu ka baxay labadan nin si u kala duwan yihiin ayuu quraankana labada qof ee soo dhex gala ah ay u kala duwan yihiin qofna waa qof maalin walba intaasoo quraanka juz kamida akhriyaya isagoo hal aayad waxa ay tahay aan ka fahmin qofna waa qof yani على الأقل لبا بيج قرآن كأخرية لكن لبدا بيج كتسبنية معلومات يأقون أنه هر أجرني بكا قرآن ماها إنه بديل إنه غير نقطه أما يعني قرآن كظاهر فيه سرية أخرنتي ماها إنه بديل إنه غير نقطه واحد وده سكجرئية وحا يعني إنه نحجل في عنك صمين إنه بديل إنه غير نقطه ماها quraanka si ay daba ay ruuxiisa u gaano gudihiisa ay u gaano waxa ku dhex jira aynu la soo dhex baxno waa inaynu tafakkur badan iyo tacaqul badan iyo inaan in badan u fiirsano waqti badan aynu siino barana qaabkan quraanka u baran lahayn يعني طرق إن القرآن كأبر اللهين إن أدرس اللهين إنه برنا وشيء مهم أو القرآن كرنتي أن كفهم ترينه القرآن كمركز سدال اللي هي كمو صدق القرآن كو يعني بشر أما يعني ضد أما يعني نوله عن عقل اللهين كمو صدقين حيوان كمو صدقين وحلا من أنا كمو صدقين أما جمادات كمو صدقين لكن القرآن هو صدقي الإنسان صبته صدقين واحد بسبب وجوده آلة العقل يعني إنه إنسان كلية هي آلة العقل يعني آلة وكف فكره ووحان هرتي سيالة انتو يعني اقوان ككسبض وعمل وبدل كرا اسلام مرتان وفعل وسي بدل كرايو هذا يعني دينتين اودن اما دعوه دينته اودن با u baahan inaynu in badan ka fikirno in badan aynu u fiirsano isla markaana aynu ka qaadano miisaanka noocaasi ma aha miisaanka oranaya
dadkan yani fikirka qaabka khaldan u qaatay noqonaya oo ma aho oo ah yani in fikirkeena iyo hab arageena aan ku kala saarno diinteena oo markaasna uu inoo cuntamaya kaasna inoo cuntamaya kaas maaha kaana uma jeedno laakiin kan u jeedna waxa weeyaan aayadii quraanka ahayd inaan ku fahmo aqligayga iyo yani tafkiirkayga inaan ku fahmo kadibna marka aanu camal iyo aqoon aan kasbaday aan u sii bedelo quraanku tumuu soo dagin ummad wax akhrisa isla markaana wax qorta laakiin quraanku waxa uu soo dagay ummad ummi ah waxna qorin waxna aan akhrin سادراديد إلهي سبحانه وتعالى مرك أمدا وكسو دجنيي حتى أمدا waxay ahaan ummad yani caqaa'idooda iyo waxay aaminsan yihiin ay luntay heer waxay gaarsiisanayeen yani cuntada cunayaan ama timirta cunayaan Umar khadawaadkii laha timirta cunayntan Ilaah ka sameysano ayaan markan gaajoonay dib u culinay hatta xaddaasay gaadhay yani heerka ay waxa Ilaahay ka dhiganayeen inuu waxaas yani ay cunayaan ay marna ay sameysanayaan marna ay dib u cunayaan inay ka gaadhay dadka noocaas ay aqoon lahayn waxna qori kareen waxna akhri kareen aqeedadoodii iyo halka ay gaarsiisantaa iyo hadana quraanka Ilaahay subhanahu wa ta'ala soo dejiyay sababta quraanka Ilaahay soo dejiyay waxa weeyaan Ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu uu garanayaa isla markaana ursoon yahay in uu insaankan siiyay aalad uu ku fikiri karo aalad uu yani ku kala garan karo waxan yani maanta ku jira inuu khalad yahay isla markaana waxa loo sheegaya uu saxsan yahay macluumaadkan uu ku qaadan karayo quraanku tumuu soo dagin dabaqa muayana يعني قرآن هو عد قال قرآن كم مسودرين لكن قرآن هو دمان يعني عد كسته أيو بسودري إنسان هو أنا بسودري قف كستان السديس أي أول هذا سادر هذا القرآن هو حق وماشى كساري وحلا يلاقيه يعني إن يعني واسطة دي يعني إن قف إله سبحانه وتعالى الله دحيه دي ما هتوضع من أرسونه كريستيان كان كسوق قادم قف ممكن دوني إنه يعني إنه دم حطوط إنه دم إنه ضعف وإنه كنيسة ترى وإنه صدقة صباحية وإنه إنك باب تايف إله يدعي يعني إنه واسطة إنه سيمرة لكن قف كإنسان كأما قف كمسلم كأهي أنتم مال فريستو أي إله سبحانه وتعالى سيديس أبرية القرآن هو دبليس هو كلام الله وأنا قفت أوتوس إلهي سبحانه وتعالى ولا هضية وإنه درنا سورة الحمد يقف إلهي سبحانه وتعالى واضح حديديا أي آياتها مركو إرادة إلهي سبحانه وتعالى ولا أفعلني حتى القرآن هو وماشي كسر واسطة نوع واحد القرآن هو قفك يعني توس أي ولا هضية ترى إلهي سبحانه وتعالى قفك مسلم كي توس أي إلهي سبحانه وتعالى ولا هضية marka uma baahna qofka muslimka ah ama qofka quraanka uu dastuurkiisa yahay uma baahna kaniisad uu taro iyo masaajid uu taro iyo meel uu yani u sii maro suu Ilaahay subhanahu wa ta'ala ula xidhiidho daradeed quraanku waxa uu meesha ka saaray wasiidkii u dhaxeeyay yani Ilaahay subhanahu wa ta'ala iyo qofka ayuu meesha ka saaray sida daradeed diinteenu ama quraanku waxa uu mas'uuliyad oo dhan saaray qofka ayaa quraanka loo dhiibay leeyahay quraanka waa kaas adiga ayaa la doonaya inaad quraanka maciisa noqotid la safartid isla markaana aad fahamtid isla markaana waxa ku dhex jira aad kala soo dhex baxdid سين وناجي كرنا مركا علاقة إنبي إيو إله سبحانه وتعالى إنك الحيسة إسلام مركانا إنه القرآن كوري كرنا مرجع يعني إنه عقل جينا يضمير كينا يو مآل كأنه كف كرينه إنه أعلن كرنا القرآن كوزي أسيه مرجع إنه وحول بقولنا نقولنا إنه كده كرنا وحرومه مثلا وحويان إنه نبدله أما قطب كتبات إنه نبدله سهولة التفكير يعني قاب كان أفكر إنه وإنه الواحد بدن كبدلنا الله سبحانه وتعالى وقرآن سوى حكوري قل هاتوا برهانكم يعني هذه شيء ليدين شيء أما شيء يعني عد لا إيمان سوى برهان يعطين كاسته سادرة يعني عد والبقى وحنوش شيء لسه أما يعني وح والبقى إن وح كل قاعدنا إنه وإنه عدين يوح لوجرنا يو إنه لهاطا سادرة المركب وحلو بهاي هي يعني مر والبقى قرآن ك يعني ونقطة برهان هذا مر والبقى يعني أو هذا الشيء لسه يوح والبقى شيء لسه قرآن كأدو يعني كرته oo quraanku cadeynku noqon tarayo wax ka soo qaadan karisid oo marka soo cilaaqada adiga iyo quraanka ka dhaxaysa ay xooggan tahay waayo ay su'aal ka ashidii ama ay yani mas'ala ka ashidii ama ay qadiya ka ashidii waxa garanaysa yani quraanka aayad kamida oo cilaaqa la isla markaana xiriir la leh taadrada waxa marka xooggan xiriirka adiga iyo quraanka idin ka dhaxaysa isla markaana quraanku wuxuu ku yahay marjac buu ku yahay quraanku waxa uu asaas ka dhigay yani inuu qofku tafkiir u la imaado qofka uu fikir karayo isla markaana uu marjac u yeelan karayo xooggan oo uu wax u celiyo oo ah quraanka iyo sunnada saddeexda diinteen waxay meesha ka saartay in dadkii hore wax loo celiyo seen hore usoo yani oo ama uu aragnay hada ma wajadna calayhi aabana ama inna wajadna ala ummati wa inna ala aatharihim muqtadun yani dadkii yani markii wax la weydiiyay ay aabayaashood iyo dadkii ummadihii ka horeeyay wax u celinayeen saddeexda markasta oo yani quraanku wuxuu leeyahay usul tafkiir in wax ka bedelo waa shay muhiim ah oo aynu yeelano marjiciyad adag oo sugan oo masaa'il walba iyo qadaayad walba oo aynu ka hadlano aynu u celin karayno saddeexda yani hadaladii dadkii hore oo dhan ayuu quraanku meesha ka saaray yani dadkii hore
inay horeeyeen kama dhigna inay hadaladooda hadalla saxsan yihiin ama dadkii hore cudamada ah ay waaweynaayeen weynida ay weynaayeen iyo makaanada ay lahaayeen iyo boosaska waaweyn ay ku jireen kama dhigna in uu hadalkoodu saxsan yahay ama mid la qaateen au yahay laakiin wax walba ama shay walba oo la idhi waxaynu miisaanka ku saaranaa waxa weeye inaynu cadayn la imaado ama cadayn aynu saarno ama miisaanka saxad ah ee loo soo dejiyo ama qur'aan wa sunna ah inaynu yani miisaanka saarno haddii marka uu miisaanka ka soo baxna uu yani saxsan yahay maquladaasi haddaanu yani ka soo bixina aynu meel isaga tuurno ama qashinka aynu ku dareyno إصلاح العقل وأداة العقل يعني إنه ما كان وناسنادو إسلام مركانا قاب كانوا أديسينا نقاب أي سحسن أي نقطة قرآن تو يعني أساس أما مهم أيو أركان سادة ردت هو وحلو للي عين شيء أو قرآن كعبي يعني وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب الصعيد يعني على هذا وحكى جرانا عقلي أنا لا نهاي ما نقولين يعني أصحاب الصعيد ما نقولين إسلام مركان القرآن إن بضنبو أماني oo in badan buu sheegay yani ya ulil albaab oo yani in badan uu leeyahay quraanku yani afala tatafakkarun afala taqilun afala tadabbarun yani in badan uu leeyahay meedaan fikireen meedaan aqal lahayn meedaan wax u fiirsanen yani isla markaan quraanku oo in badan u amaanay dadka kalena quraanku ku ceebeeyay bisababi yani inaan aqligooda iyo maanka ilaahay subhanahu wa ta'ala si aanay ka faa'iideysan dadka qaar baa jira hadaba dadka u diida yani inay fikiraan ama quraanka tadabbur iyo ilaaqa la yeeshaan iyadoo u aanay inay dadkaasi jaahiliyihiin waa sax oo qofku quraanka waa baran karaya isla markaana waa muhiim inuu cid kale yani u daba fariisto isla markaana uu ka barto laakiin barashada uu qofku baranayo waa miftaaxi qofkaasi siinay laakiin qofku inuu quraanka macuu la noqdo quraanka uu soo fahmo quraanka soo yani rihlada la sii sameeyo oo la sii safro qofka ay u taala marka isma diidaya inuu qofku yani quraanka ku tadabburo iyo qofku inuu wax ka barto oo quraanka cid u daba fadhiisto oo isla markaana uu qof ka barto cid uu ka baran karaya oo uu tagi karaya quraanka tafsiirka uu ka qaadan karaya laakiin inuu qofkii dabaqo oo qofkii quraanka la sii yani macla sii noqdo isaga ay qofka laga sugayay isla markaana isaga ay mas'uuliyadiisa ay tahay quraanku waxa uu xoog saaray oo in badan ka hadlay yawm al-aakhirah يعني ما أنت آخره يصير أو وجه الله كأداء يعني كأداء للتفكير يعني سي قفك وجه فكرة كريه إسلام كان وح مقال وأصور يسن كريه وايو يعني ما أنت آخره وين يقول شيء سيدا تحقيق مقال كأي تحقيق وح أي تحقيق من يعني الله شيء برهان تأي عطين تها الصح إنه هاي سنة إنه جرنا إنه مد برهان صح أي تحقيق القرآن في السنة إنه الله شيء oo aynu maankeena markii hore ka dhacdhicna inay mid saxsan tahay oo aynu qaadanay oo aynu rumaysanahay rumaynta aynu rumaynay cadaynta iyo daliilka in loo keenay baa waxa dhacday inaynu maal sameeyno ama tafkiir aynu sameeyno oo maskaxdeena aynu ballaadno kadib waxaanu suuraysanay dhammaan waxa in loo sheegay suuraysiga aynu suuraysanay been ku dabaqnay amalka aynu sameeynay oo wixii wanaagsanaana aynu ka digtoonaanay inaan asxaabu saciid ama asxaabu jahannam u noqon wixii wanaagsanaana aynu u sameeynay in u noqon asxaabu janna oo aynu garanaa dhammaan waxa laga suureeyay ama waxa laga iri aanu garaano marka quraanku wuxuu yawm al-aakhirah uga hadlayo in badan tafaasiil badan inuu la sheegayay inuu maanteena u furno waxa inuu loo sheegayna bal aynu ka fikiri karno inuu markaa ku dabaqana ama ay qaabaynayso amalada iyo waxa aynu sameynayno hadaba yani wujuudka inaynu noqono dad ka fikiri kara mustaqbalka iyo waxa yani yawm al-aakhirah ka sheekayn kara وشيء آد مهم وشيء قرآن ترنتي وحود ساريو وأنا شيء كحرا يعني مفهوم يوم الحساب إن ما أنت حساب يوم ما أنت قيامة أي نرنتي أي نفهمه وعجري يعني قرآن تو مركزية وحوكة دقيقة أما وحوجينية سو أي ضد تفكر له مثلا ما كان تدبر له أن قلنا قلنا إنه سطح قضية ورنتي آد ومهمة وصارية قضية كربات العقل يعني إنه قفك ما أنتيسو وكفكر كري أما ما وحكوك على صار كريو وحي وحصص وكقاعدة كري وليه الضمير إنه ليه قلبي أما درين وحديدي كريا إسلام كان الدرين يعني ما أنت يعني دول كعالم إسلام أنا هنا نقولنا يرو قواعد ودي قانون ودي أفتح واحد تشيء يعني إنه دران أي هذا أرتنا واحد الله واحد بالآدم كوسميني يعني ضد كوسميني يعني واحد شيء يعني إيه واحد ضمير كود كتير أي كلدون ضمير كود أيان أديرين واحد ما أنت أي سميني يعني عالم إسلامي أي كسميني يعني دبعتون كأودي سنين لكن قفل يعني إسلام كمسلم في إيه وحليه الضمير واحد ديدي إسلام كان واحد قرنا واحد ما وناسنا حتى هدي أن لو كنتين
ama uu xumaan u arkayo taas saddexaad ee quraanku uu ka hadlay waxa weeyaan in maalka aynu hore u soo sheegnay oo ah waxa inaga maqan ee diinteena inoo sheegtay ama ina loo soo bandhigay ee qawaacidiisa iyo qaabku yahay loo sheegay inaynu maskaxdeena u ballaarino oo isla markaana aynu in badan ka fikirno wixii saxsan aynu markaa aynu sameeyno wixii qaladana aynu ka digtoonaano intaas aynu soo gabagabeynaa xalqadeena koobaad وإنه هي حلقة حكتا دمتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحي بالقرآن ترنم يدفع عنا